waxaa habeennimadii xalay ka dhacay magaalada Johannesburg dalka Koonfur Afrika xaflad si heersar loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan oo iskugu jira bulshada ku dhaqan magaalada iyo kuwa kale ka yimid magaalooyinka kale oo lagu casuumay gogoldhiga xafladda ayaa ahayd xayiraadii laga qaaday shirkadda xawaalada Barakaad oo lagu soo dhaweynayay in ay xawaalada dib u soo noqoto waxaa meesha ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Somali Community Board oo ahayd jaaliyadii isku hawshay in ay dhigto xafladani gudoomiye Ismaaciil Soomane ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in shirkadda xawaalada Barakaad ay ka bariir noqoto wixii lagu eedeynayay taasi wuxuu ku tilmaamay inay bulshada u tahay guul waxa uu kale u mahadceliyay dadkii ka shaqeeyay in shirkadda xayiraadda laga qaado runtii bani aadamka waxa ugu qaalisan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyay waa nafta iyo maalka iyo caqiidada runtii waxaan isleenahay in aan dareenkeena muujino ka Soomaalinimo annaga oo qurbaha ku nool mumtalakaadkeennii iyo hantidii Soomaaliyeed ee dhaawac la gaarsiiyey sanadaad badanna runtii arrintaas ay socotay inay hadda caddaato baraa'adeeda iyo nadiifnimadeeda ama dadkii gacanta ku hayay ama hantida laftirkeeda inay wax weyn tahay ayaan u aragnay taas marka waxay kaliftay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika oo kaashanaysa ganacsatada Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanada waxaa kaloo meesha ka hadashay gabar kuna hadlaysay magaca dumarka jaaliyadda magaalada waxay u mahadcelisay marka hore dadkii ka soo agaasimay xafladda waxa kaloo ay u duceysay Sheekh Axmed Nuur Cali Jaamac ilaa haatan loo haysto dambigii lagu xiray waxa isagana madasha ka hadlay kuna hadlayay magaca oday dhaqameedyada magaalada oday Cabdi Wehli waxa uu u mahadceliyay dadweynihii ka soo qayb galay iyo sida uu sheegay in uu xawaalada furay Sheekh Axmed Nuur Jaamac oo ahaa nin isku hooli jiray in wax badan uu ka qabto musiibooyinka ku dhici jiray bulshada Soomaaliyeed waxa uu tusaale u soo qaatay abaaraha oo sheegay in uu wax badan ka qabtay sheekha isku soo wadado shirkadda xawaalada Barakaad oo la saaray xayiraad bishii November muddo laga joogo 12 sano kadib ayaa xawaalada laga qaaday xayiraadii bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ayaa soo dhaweeyay xayiraadii laga qaaday tanina waxay u muujinaysaa bulshada ku dhaqan dalka Koonfur Afrika sida ay ugu faraxsan yihiin xayiraadii laga qaaday shirkadda xawaalada Barakaad محمود عبد الله حسين أبوكي تي في عالمي S24 TV مقالة جوهانسبرغ دالك كونفر أفريقيا